dhegaystayaal sida ka dhex dhacda bulshooyinka aadanaha oo idil soomaalidii reer miyiga u badnaydi waxay soo martay dagaallo markii waa la joogaba ka dhex aloosmi jiray waxay ahaayeen dagaallo muddo kooban socda oo tolalku ay isaga hor iman jireen guud ahaanna loo geli jiray hanashada iyo kala jiidashada waxyaabihii noloshooda lama huraanka u ahaa oo daaqa iyo biyuhu ay ugu weynaayeen ma ahayn qaar sababi jiray geeri fara badan oo la garab dhigi karo xasuuqa colaadaha siyaasadaysan garab socda ee aynu u soo joognay guyaashii dhowaa ee aynu soo dhaafnay hamuunta xafiisyada salsale loo qabaana ay ku wacnayd dagaal walba dabadii siday u badan tahay ummadaha dunidu waa xisaabtamaan dhinacyadii ay diristu dhex martay midkood kastaaba isaga oo murugaysan ayuu tirsadaa rag wixii uu dhinaca kale ka laayey haddii laga gol roonaado kama xishoodaan wixii dhacay iyo sidii ay u dhaceen inay ka rur sheegaan isla markaasna dagaalyahankii naftiisa bulshada u horay abaalkiisa ma bi'iyaan oo ma duudsiyaane waa u baroortaan xusuustoodana waa ku waariyaan ha yeeshee dhaqankeenna dagaalku sidaas kuma tilmaana haddii laga adkaado tolka soomaaliyeed marnaba jabkiisa ma qirto qab xad dhaafa oo aan gar ahayn dartiis wuxuu iskala weynaadaa dhinaca ay dirireen inuu libinta u oggolaado tiro kasta oo rag ah laga gabawaree kolnaba in dagaalkii shalay looga raayey naftiisa uguma sheekeeyo kamana dhaadhiciyo goobtii yaa helay ayuunbay isweydiin jireen dib looguma noqon jirin barbaartii geeltoosiyaha laga cashaysiiyey carabka iyo ceebaynta bulshada kale si uu uga badbaado waxayba u badan tahay in guushii laga helay uu tolku isagu isa siiyo qoladii ku gar lahaydna uu u quuri waayo midda kale dagaalyahanka tolka soomaalida waxaa sheegsheegga magaciisa ugu dambaysa maalinta la dilo cid aan qoyskiisa ahayni uma baroorato taalo lagu xusuusto looma dhiso hadduu dad lahaa agoontii uu ka tegey lama xaaleeyo aaskiisa kadibna bilado abaalguda waalidkii isaga dhalay laabta looguma shaqlo waxayba ku mahmaahi jireen nin dhintay kabihiisaa dhaama sababahaas awgood waxaa maansada soomaalida aad ugu yar gabyaa qoladii uu ka dhashay dagaal lagaga adkaaday dabadeedna tiriyey tixa uu kaga calaacalaayo guuldarrada goobtii ka raacday iyo guud ahaan wixii geeri iyo galangalacow uu colkoodii ka mutay waxaase jiray gabay iyo geeraar waaye isu dhow la tiriyey oo raggii lahaa ay kaga calaacaleen guuldarro ka soo gaadhay goobhoog ay qayb ka ahaayeen colkii ay la soo duuleenna si xun loogu jabiyey geeraarka waxaa mariyey qaajo baras in la odhan jiray oo ka mid ahaa ciidamadii uu ingiriisku u soo urursaday jabinta daraawiishtii sayid maxamed cabdilla xasan aanse idin xusuusiye 1901 iyo 1902 waxay daraawiishtu ingiriiska kaga adkaatay dhowr goobood oo kuwa ugu magaca dheeri ay ahaayeen afbakayle fardhidin iyo beerdhiga taasoo noqotay arrin ay qaadan kari waayeen janaanadii ingiriiska ee london fadhiyey iyo saraakiishoodii berbere ka talinaysay dirkaba maantaas bay go'aansadeen wadaadka iyo ciidamadiisa inay mar qura iyo si kama dambaysa uga faraxashaan si aanu u saamayn dalalka kale ee ay dunida ka gumaystaan waxay isu keeneen imbaraadoriyaddu ifka ballaaran wixii ay ciidan ku lahayd kuwii ugu fiicnaa marka buuxa oo ku dhowaad 3,000 oo nin iyo hubkoodii ay ku raran tahay ayay hubyo ka soo dejiyeen gaasas kale oo laga soo dhuray England Hindiya iyo Afrikada Koonfureedna berbere ayay soo dhoobeen boqor Mililakii labaad jigjiga ayuu guuta camaariyeley ka soo diray intaa ka sokow geyiga Soomaalidii joogtay ayaa dacaayad lala dhex galay nin walba oo qaangaara waxaa lagu booriyey inuu ka qayb qaato duulaanka wadaadka ku socda waxaa loogu sheekeeyey daraawiisha inay tabar daraatay inay safarda fiican lahayn
qoryo iyo rasaas inaanay haysan sidaa darteedna si fudud looga ilheli karo markaasna uu nin waliba kala soo noqon doono kadimo geel ah iyo hanti kii gacanta ku dhigaa aanu kol dambe sabooli doonin. qorshaha howlgalka ciidanka ingiriisku wuxuu ahaa gumburaha cagaar weyne oo sayidka iyo ciidamadiisu ay maantaa fadhiyeen in lagu galo oo halkaa gam lagaga dhigo, in lagaga duulo koonfur galbeed iyo waqooyi si waddooyinka ay ku baxsan karaan oo idil looga xidho. mase noqon tara u meel martaye way mala habaabeen. daraawiishi qorshahaas way ogeyd. maantaa goobtii dhacdayna waxaa nag lagaga dhigay guutooyinkii caddaanka madowga iyo midab kastaba lahaa oo sidaan soo sheegay uu ingiriisku meel kastaba ka keenay. waxay noqdeen wax la laayay iyo wax dhaawacan. siday iyagu buugtooda ku qoreenna 6 nin oo keliya ayay ahaayeen waxay halkaa nabadqab kaga laabtay. gabay carabi ah oo guulkufaana ayuu sayidku maantaa mariyey. waa gabaygii uu ku jiray meeliskii ahaa wa axyaaunaa min khayri ahli lmacaashiri wa amwaatunaa min khayri ahli lmaqaabiri. qaajab maxamed ciise oo qaajab baras lagu naanaysi jiray wuxuu ku jiray soomaalidii dacaayadda lagu hoday. geel jacaylka dartiis soomaalidii ingiriiska ugu askaraysay ee badiba goobtaas lagu laayay cidise aanay tirsanayn. wuxuu ku jiray wixii yaraa ee inta badbaaday rafaadka iyo cagamuruxa cidahoodii ku gaadhay. dabadeedna markii laga waraystay duulaankii uu raacay iyo goobtii cagaar weyne ayuu ku jawaabay geeraarkan warbixinta u eg ee dareen taabadka leh. wuxuu yidhi raxanraadkiiyo hawsha kamaan raalli ahayne rag baas bay damciyey rabbina weyla iraaday geed baana raadi lahaa buuri. ee waxba yaan rimadiis iyo ratigiisa rareeyiyo ramagiisa kaxayne kol haddaan rubadayda reerihii nabadgeeyey rabbiyow mahadda. hindigaa ridi doona soodaantaa rogi doonta yamyamkaan rinjijeedsan rag cad baynu u geyno reedhi baynu ahaano ruqo weeyo farduuyo rasaastoodu ma fiicna rabbigay talin maayee rugtoodaynu galaayo ninba reer ha kaxaysto. so wixiina horoorae raggii ay qoranaysiyo rogay gaalada maaha buuri.